madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa soo gaaray goor dambe oo galabta ah magaalada Addis Ababa. Madaxweynuhu wuxuu berri ka qayb galayaa shirka 13aad ee caadiga ah ee madaxda urur goboleedka IGAD. waxaana ka horeeyay shir maanta dhacay oo heer golo wasiir ah oo ka qayb galay Danjire Axmed Ciise Cawad wasiirka arrimaha dibadda, kaas oo lagu gogol xaaray kulanka madaxdu ay berri yeelanayaan. ajandaha ugu muhiimsan ee IGAD shirkan caadiga la isugu yeeray ayaa ah in dib u habeyn dhab ah lagu sameeyo urur goboleedkan oo runtii aysan si siman uga faa'iideysan dalalka gobolka. aadna moodo sanadihii u dambeeyay in kulamo badan oo ka duwan midka haatan ay dhacayeen. waxaan rajaynaynaa shirkan kadib inay noqoto urur ay dhammaan dalalka gobolka u siman yihiin, si siman ay uga faa'iideystaan, xooggeedana lagu saaro sidii lagu horumarin lahaa dhaqaalaha gobolka.